sida loogu guulaysto qalbiga qof aan xiise ku hayn loona soo jiito markasta oo uu qof wax si aad ah uga fikiro wuxuu bilaabaa qofku in waxaasi maskaxdiisa marar badan ku soo noqnoqdaan isla markaana fikirka shaygaasi uu ku sii ballaadho arrintan waxaa fahmay kana faa'iidaystay shirkadaha waaweyn taasna waa sababta ay mar walba xayeysiiska shirkadahooda meel walba u dhigaan kuguna soo celceliyaan maskaxda bini'aadanku waxay wax cusub ku rumaysataa ku celcelin badan haddii waxyaabo fiican oo qofka raali geliya marar badan lagu soo celceliyo qofku wuxuu noqdaa mid ku fikira waxyaabaha wax badan xasuusta isla markaana ku xidhnaada haddaba waa maxay xidhiidhka ka dhaxeeya inaad soo jiidato qofka aan xiise ku hayn iyo arrintan xaqiiq ahaan haddii aad ku guulaysatay inaad qofka ka dhigto mid si aad ah kaaga fikira waxaa tallaabooyin yar u jirtaa inaad qofka jacayl ku abuurto xataa haddii aanu wax xiisaa ku hayn jacaylku sidiisaba waa xaalad aad qof si joogta ah uga fikirto ilaa aad gaadho heer aad iska joojin kari weydo qofka ka fikirkiisa haddii aad rabto inaad soo jiidato qof aan xiise ku hayn waa inaad ugu horrayn barataa sida aad qofka uga dhigi lahayd mid wax badan kaa fikira si aad u soo jiidato qof aan xiise ku hayn waa inaad qabsataa fikirkiisa ha isku qaldin soo jiidashada caadiga ah iyo inaad qofka dareenkiisa soo jiidato waa wax aad u fudud inaad qofka dareenkiisa soo jiidataa adigoo samaynaya waxyaabo aan caadi ahayn oo qofka ka yaabiya ama xataa waxyaabo xunxun balse markuu qofku gurigiisa ku noqdo laga yaabo inaanu dibba ku xasuusan soo jiidashada saxda ah ee aan u jeedaa waxay tahay ta qofka dareenkiisa aad soo jiidato ee xataa ku sababta inuu kaa sii fikiro ilaa markaad ka tagto habkan soo jiidashada ahi wuxuu ku bilaabmayaa adoo soo jiidanaya qofka aad beegsanaysa ee taargetka ku ah dareenkiisa balse aan wax kasta ku soo jiidanin dareenkiisa waa inaad qofka tustaa inaad leedahay tayooyin uu baahi weyn u qabo haddii aad tusto inaad leedahay tayooyinkaana waxaad soo jiidan doontaa qofka xataa haddii aanu marka hore ku xiisaynayn qof kasta oo adduunka ku nooli wuxuu leeyahay sifooyin ama dabci uu ka helo waxaana soo jiita qof kasta oo sifooyinkaa leh tusaale ahaan dumarka qaar waxaa soo jiita ragga hamiga sare leh sababtoo ah waa sifo tusaysa in ninkaasi uu maalin u noqon doono nin jira oo meel ka soo baxa ragga qaarna waxaa soo jiita gabdhaha ragga kale ka daba dhacaan sababtoo ah waxay aamineen in gabdhahaasi yihiin gabdho heer sare ah haddaba sababta laga yaabo inaanu qofkuu xiisayni waxay tahay inaanad weli tusin sifooyinkan uu u baahan yahay ka hor inta aanad isku dayin inaad soo jiidato qofka dareenkiisa waa inaad ugu horrayn urursataa oo aad heshaa xog ku saabsan qofka isla markaana aad ogaataa waxyaabaha xiisegeliya ee qofkaasi ka helo ma qof isku kalsoon bay ka heshaa ma qofka naxariista badan ayuu jecel yahay ma qofka hamigiisa iyo hiigsigiisu sarreeya ayay jeceshahay waa inaad urursataa xog badan oo ku saabsan sifooyinka uu qofkani ka helo u beddel soo jiidashada in qofkani wax badan kaa fikiro bilowga hore waa inaad noqotaa qof inta badan la heli karo si aad u xaqiijiso inaan lagu ilaawin dagaalka aad ugu jirta sidii aad u soo jiidan lahayd dareenka qofka waxaa kugula tartamaya dad badan oo kale oo sidoo kale raba inay soo jiitaan dareenka qofka aad beegsanayso waa inaanad noqon oo keliya qof la heli karo balse wakhti kasta oo aad aragto waa inaad soo bandhigtaa tayooyinkaaga ugu fiican ee aad leedahay ilaa intaanu weli qofku ku xiisaynayn marka uu qofku noqdo mid kula dhacsan oo kugu soo xidhma islamarkaana nolosha qofkaasi noqoto mid la qabsata la joogistaada bilow inaad u dirto signalis kala duwan tusaale ahaan maalin iska dhig mid aad u xiisaynaya maalin kalena qofka gebigiisaba iska indha tir oo ignoor garee kuwad muddo inaad maalinna u fiicnaato maalinna ignoor garayso qofkuna wuxuu bilaabi doonaa inuu la yaabo waxa kugu dhacay islamarkaana uu wax badan isweydiiyo inaad dhab ahaan u jeceshahay iyo in kale halkaa markaad joogto u hambalyeen naftaada sababtoo ah waxaad bilaabaysaa inaad qofka fikirkiisa qabsato oo aad buuxiso ku sii wad samaynta arrintan waxaanu xataa qofkaasi kaasii fikiri doonaa in ka badan intii hore ilaa uu gaadho heer ay ku adkaato inuu adiga la'aantaa joogo halkaa markaad taagan tahayna qofkii aan ku xiisayn jirin wuxuu bilaabi doonaa inuu adiga kaa daba dhaco aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin like saar haddii muuqaalkani ku caawiyey sabscribe haddii aanad hore sabscribe u taaban tan iyo kulankeena kan xiga haddii rabbi idmo ammaano allah iyo ismaqal dambo xiise leh